gabar Soomaaliyeed oo muslimada ayaa nin shabaab u yimid ku kufsaday deegaankaas markay joogan galka lama shir gal la yiraahdo gabadhii waxay tiri aniga nin noocaas ay kufsada oo shabaab ka tirsan odayaashii dhaqanka yimid ninka waa la saaniyay meesha deganaan saanta la geliyay waxaa la yiri nin idinka in kamid ah gabar naga kufsaday naga soo garbaxa waxay dhaheen in anaga ina soo gasho waa aragnaahay gabarta hadii ka soo dhax saari kartay nimankii ka soo dhax saarto dhowr nima la dhax geliyay ninkii ka soo dhax saartay ninkan oo ahay ninka xalasaas uu sameeyay meesha laga rabo in xukunka diinta islaamka la fuliyo waxay dhaheen uqti filaahi anaga islaamaan nahay waxaas naga ma dhici karaan haday dhaceen waa dhaceen qubaysa kugu waajibay gabarta hadii ay xalaal u ahayd iyo hadii xaraan u ahayd qubays waa waajibay waxba loo qaba diiday markii dambe waxa la mar dambe arrimaheena soo qaad oo ku dileynaa problem iyo fikirkii qabta darteed ay la dhimatay gabarta Soomaaliyeed sida u dhimatay marka cadaalad horta meesha ka joogan